mar labaad iyo mar saddexaad fariinta aan dirayna waxay tahay dulmiga aan ka dhex aragnay warqadda habeen hore inaana sii aqbali doonin xamar hadda ka hor waxaa la baxay ciidan la baxay badbaado qaran baa ka hawlgalay aad iyo aad wax badan bayna dee qabteen oo soo dhaweeyeen doorasho dulmi ma ogolin gaar ahaan dee kursiga waxaa marqaati noo noqday indha qarsho gobolka uu ka soo jeedaa waa mudug afar waaqa kursigu yaalla kursigiisu wuxuu matalayaana waa afar waaqa iyo dadka la degan iyo reer shiiq oo ka soo jeeda halkaas haddana ayadoo reer shiiq dhammaan suldaan iyo ergo iyo odayaal u dhammaystiran yihiin u safan yihiin baaliyana ma tartami kara qoonda dumar oo kursiga awalba dumar kuma fadhiyo nin baa ku fadhiyay haddana meesha aan wax ku jirin ha gabadha loogu soo qoray waxaa la diidan yahay qofka deegaanku rabo waxaa la diidan yahay qofka odayaashu wataan waxaa la diidan yahay qofka ergadu wadato annaguna waxaan rabnaa qofka ergaduna wadato odayaasha saxda ahna wataan madaxweyne axmed kaariyo qorqor waa salaamaynaa in badan madaxweynaha saxda ah way galmudugna dee juhli badan buu ka soo sameeyay bixiyo aan malaynayno inkastoo dee qof shaqaynaya uu soo waayeen waxyaalo badan oo boog ku ah laakiin wax badan inuu qabtay aan aaminsanahay ciidamada xaggooda aan noqoto doorasho in la qabtaa aan noqoto wax badan inuu qabtaa aan aaminsanahay waxaan oran lahaa galmudug ha u horseedin qalalaaso iyo dulmi iyo dab inay gasho galmudug iyo galguduud inay kala go'daan ha u horseedin galmudug mudug iyo galguduud bay ka dhisan tahay waxaan aaminsanahay in galguduud inay qaadatay madaxweyne ku-xigeenkii guddoomiyihii baarlamaanka haddii nala ku faragashado 12 kursi mudug waxaa sabab ah galmudugta hore inaan soo celinayno mudug ay galmudug kale macnaha wixii la isku darsaday in madaxweyne axmed cabdi kaariyo qorqor waa la wada garab istaaga markii la dhistay 12 bilood baa garab istaageen dadkii ku garab istaagay ha lumin annaga ka ciidan ahaan waan ku taageersanahay laakiin waxa 12 kursi reebayaan baan u jeednaa 12 kursi finada ay reebayaan haday boob noqdaan baan u jeednaa mana aqbali doono waa soo dhaweynayaa waxaan codsanaynaa inaan ka wada fariisanno in 12 kursi ay u dhacdo si xor iyo xalaal ah ay u dhacdo qorsheedu ay u dhacaan baan isku raacsanahay waxaan fariinta aan diraynaa waxay tahay waxaan rabnaa doorashada gobolkan